بسم الله مقعد وعلى الساقة الجامعة وحكم على الساقة البني وحكم على النظام الصومالي خصوصا المجال الجروي runtii waxaan rabaa maanta inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed maalinta 16 Juun waa maalintii ugu horeysay calanka Soomaaliyeed la taago markii ugu horeysay calanka Soomaaliyeed la taago waxay ahayd taariikh waxay ahayd dib Soomaaliyeed waxay ahayd maalintii gumaystaha dalkeena ku xiran waxay ahayd maalintii dalkeena ku noqday wadamada adduunka waxay ahayd maalintan xiriirtii u helay 16 Juun oo ahayd maalintii ugu horeysay calanka laga taago magaalada Hargeysa iyo maanta oo sanad gudaheedu ku beegan tahay waxaan rabaa inaan hambaliyada la wadaago dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan madaxda Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin dadweynaha iyo shacabka waxaan kaloo jeclahay inaan isla ciidda oo maanta waa maalin ciiddii waa bisha Ramadaan soo dhamaatay waa isbuuc ciida waa laba ciidood oo isugu soo aadamay shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa labada munaasabadood hambaliyadooda inaan isugu diro shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan rabaa inaan dib u xusuusiyo dadkeena iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed inay dib u fiiriyaan sidii xorriyadda loo helay xorriyadda iska imaana dad baa ku waayay naftooda dad baa ku waayay xubnahooda dad baa u soo dagaalamay dad baa dhaqaalahooda iyo hantidooda iyo maalkooda ku waayay waxaan rabnaa Soomaaliya maanta maxay ka dhaxashay xorriyaddii calanka la taagay xorriyadda la soo dhiciyay calanka Soomaaliya Maxamed Cawaale Liibaan alfay raggi ka dambeeyay in calanka la saaro oo maanta ugu horeeyo maanta wayna ka hooseeyaan laakiin wana taariikhdooda dawladna waa in sidii hali ugu soo helay si la sida xiriirana dawladna maanta waxaan rabnaa dhalinyaro Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay taariikhda ay ku dadaalaan sida ay dib u saaray macnaheedu inay iska noolaatiin in adduunka iska joogto macnaheedu marka waxaan rabnaa inay nugula taariikhda mid lamid ah digaan dib soo celino shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada ra'iisul wasaaraha qaranka dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka meel kasta ay joogaan waxa la islaam calaykum raxmatullah qaranka waa noolaado Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya guul Soomaaliya marnaba maslaxa lagu yaqaan ku soo noqoto dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uu baaqayaa inay dhammaan gacmaha isqabsadaan ay ka shaqeeyaan si Soomaaliya ama hore soo noqon lahayd Soomaaliyeedii 27 sano oo boroba ku jiray laakiin waxa soo kala doonaa maanta wadada bulshada cagta saar doona insha Allah laakiin Soomaaliya noolaato maalay سلامتينا يا سلام واي waxa salaamaya dhammaan haddaan xagga salaanta isoo dago dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed waa salaamaya waxaa kaloo salaamaya dhammaan dhalinyarada barnaamijka waxa barnaamijka ku midaysan waxaa kaloo salaamaya dhammaan inta muuqda iyo magacayga qaran meel kasta ay joogaan waxaa kaloo salaamaya familkayga iyo dhammaan qaraabadayda asxaabahayga kala duwan salaamaya على عيد ونعسل سنة كله إلهي كبار سينا ودي برارك